أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وأن السلام يا أمير والبود أدوك كجوجتين وحن الله وقت وايدين وعناذو. ما أنت وحن جعلها إنك كلمة كوبان كيراهضو موضوع iyo problem runtii bulshadeena intan dambe aad iyo aad ugu soo badanaya oo waliba waayadan dambe aad moodid inuu xad ka bax noqday. mawduucaas oo ah kufsiga hablaha. waxaad moodaa runtii inay intan dambe dhigihiina ay ku bateen inaan maqallo ama inaan aragno muuqaalo naxdin iyo murugo xambaarsan, kuwaasoon aragno inay ay dhibaatooyin ku dhacday gabdho yaryar oo Soomaaliya oo runtii in si arxan darro ah loola dhaqmay oo intoo la kufsaday haddana la dilay intoodii badnayd. waxaad moodaa sanadkan iyo sanadkii horeba inay arrimahaasi aad iyo aad intan dambe oo dhan ay nagu bateen. wax weli tallaabo oo laga qaado ama cid wallaahi si fiican uga hadasha arrinkaasi lama arko. waxaad moodaa inay noqotay wax lala qabsaday oo caadiya. wax caadiya maaha, waa problem inagu soo wajahan haddana bulshada Soomaaliyeed. waa dhibaato guri kasta saameyn karta. waa mid run ahaantii u baahan in wax laga qabto oo laga hadlo culimo iyo caamaba. ma arkaysid problemka runtii yani culimo ka hadlaysa ama sheekhiya ka hadlaya ama dowlad ka hadlaysa. waana dhibaato aad u weyn. waxaad moodaa inay yani hablaheena Soomaaliyeed inta badan noqdeen lama ooyaan, cid u helisa aanan haysanin. waa dhibaato murugadeeda leh, naxdinteeda leh, especially haddana ay hooyooyinka Soomaaliyeed. waa arin mar walba fajicisan ugu ah iyo naxdin. in laga hadlo oo qof walba uu ka hadlana way fiican tahay. cod dheer iyo cod gaabanba in laga hadlo way fiican tahay. qofku haduuna dhulku meesha uu ku nool yahay ee Ilaahay ku abuuray au joogo auna ammaan auna ku haysanin, gabadha muslimada ee Soomaaliyeed haddii ay ku noolaanayso cabsi iyo naxdin iyo ammaan darro ay dareemayso, runtii waa arin aad iyo aad u adag. marka arrimaha noocaas ay nagu soo noqnoqdaan maalin walba aragna gabadh yar oo la maxay heedaanay yani la qadar jabiyay oo la xumeeyay oo mustaqbal dadan ay ku soo tabceen oo lahaayeen maanta ay mustaqbalkeegii ay bilaabaysaa. mustaqbalkaasoo la seejiyo dabcan saacad way jirtaa, qof walba saacad buu dhimanayaa, sababna way jirtaa. laakiin waxaa jirta wax la yiraahdo Soomaalidu waxay tiraahdo daranyo. walaa runtii daranyo ayaa jirta. daranyadu waxay ka imanaysaa oo sababa hablaha Soomaaliyeed inay dhibtaas ugu soo noqnoqoto bulshada aan ku dhex noolnahay. hadday dowlad noqoto iyo hadday noqoto dad aqoon-yahana, hadday noqoto dad muxuu haayay waxgarada odayaal, hadday noqoto waxaad moodaa in inta ugu badan waxyaabo aanan faa'iido lahayn oo dadka aanan faa'iido lahayn runtii lagu wareersay, dadku ku mashquulsan yihiin. laakiin waxyaabaha muhiimka ah ee nolosha bini'aadanka taabanaya yani waliba sida foosha xun loo taabanaya inta badan in indhaha laga dadbo oo aanan laga hadal. waa arin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh. haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed, haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed, maxaa inala gudbo? ani waxaan oran lahaa horta qof walba ina waxa fiican wax walba beeska laga soo bilaabo. dadku inay iyagu isku bilaabaan baa qurux badan. sidaas isku bilaabaysa wiilkan dhibaatada sameynaya ee gabadh walaashiya falka u geysanaya ee xumaatada ilaa heerka yani dil, yani awal kufsi baan maqli jirnay, laakiin imika waxa aad iyo aad uga sii daranba kufsi macal dilmo. taasaa imika aad moodaysaa inay yani aad ugu badato, wax caadiyana ay noqotay. awalkii hore gabadh baa la kufsaday baan maqli jirnay, laakiin gabadh la kufsanayo oo la dilaya haddana ayaa imika aad iyo aad u soo noqnoqotay. waa jariimo waxshinimo halkii ugu dambeysay weeyaan. adduunyada kalena waan ognahay yani xeerar baa la samaystay dhibaatooyinka noocaas qofka geysta yani jazaa'igiisa ciqaabtiisa waa la marinaya. laakiin dadkeenan iminka bulshada aan ku dhex noolnahay waxaad moodaa inaan qaabo haraan u sheegay inaan qaabo iskaga noolnahay. yani alqawiya akulu daciif, yani qofka yani xoogan uba qofka daciifka يعني cunaya. waad arkaysaa yani gabdhaha ama qofka dumarka haweenkii yani waa qof cawaadif ahaan iyo jir ahaan iyo dhan walba waa qof yani jilicsan weeyaan.
waxay u baahan tahay ximaayad deyr iyo yacni ammaan inay ku noolaato ay mar walba u baahan tahay cidda u provide garaynaysa ileen waa nusful mujtamaca weeyaan bulshada dhan waxa weeyaan barhkeedii weeyaan waa waxa weyn bulshada qaybta ugu yani waxaan odhan karaa soo saaraysa bulshadan aan ku noolnahay ee dadkan yacni badanaya ama tafiirta badanaysa waxa weeyaan waaba lafdhabartii bay u tahay baan odhan karaa ilaahay markuu adduunka oo dadka keenay oo aadan abuuray xaawana oo maxay hedaanay inferdisa laga abuuray waayo ilaahay baa og yacni adduunka siduu usii socon lahaa xigmada loo keenay dadka bini-aadamkiisa usii socon lahaayeen ayuu ilaahay didig iyo lab ummadii au ka dhigay marka mid hadduuna jirinka kale ma jirayo marka aan waxaan garan lahay sababta maxay hedaanay loo dhayalsanayo hablahan yaryar ee dhibaatadu ku socoto runtii faamiladoodii uun ay la tacaalayaan ee cid ka hadlaysa aanad arkaynin waxyaabaha kale aadka iga sii yaabiya waxaa kamid a inay dadkeenu inta badan ay fariimo u dira masajyo gabdhaha waxaa laleeyahy gabadhay is ilaali gabadhay sidan samee gabadhay muxtashimad noqo gabadhay waa sidan waa sax gabadha in akhlaaq lagu barbaariyo oo diin lagu barbaariyo oo waa muhiim weyn say nafteeda u ilaaliso ay uga adkaato laakiin aaway fariintii loo diray wiilka ninka ahee dhibaatada intaa lee geysanaya ee reer dhan muxuu haaye saa dhabarka uga jabinaya ee yacni qof maanta qof bini-aadamna ku dhagaroobay oo dilay waxay ka dhigan tahay ummadoo dhan buu dilay bay ka dhigan tahay ummadda bulshada oo dhan buu dilay bay ka dhigan tahay qofka ragee waxaa sameynaya maxay tahay fariinta inay tahay in loo reebo ay tahay ama in loo dee maxay hedaani looga tega ay tahay dhammaanteen gabadha ayaa waxaa laga yaaba ina dhaliila saarno xataa waxaad arkaysaa wallaahi waxyaabaha aadka in looga naxa ah hooyooyinka ama dumarka qaar ayaa waxay odhanayaan gabadhu waa inay sidan sameyso gabadhay sidan samee gabadhay sidan samee okay gabadhu way sameynaysaa laakiin wiilkan halkan u taagan ileen meesha waa inay gabadhu freedom dareento waa inay dareento ammaan waa inay markay baxdo yacni ay dareento inay meel ammaana joogto oo yacni ayna dhibaatooyin nooca in la aftubo ama wixii doono lagu sameeyo inayna ku dhici karin waa inuu xiskeedu ku jiro laakiin gabdhaha yaryar duhurka cad dharaartii soo jeedo inta la qaato la afduubto wixii la doono lagu sameynayo wax adduunka lagu arkay maaha yacni waa extreme weeyaan wax aada iyo aada u xun marka ani waxaan odhan lahaa anoo kusoo noqonaya qodobkii ahaa maxaa aynala gudboon horta guri kasta hooyo kasta ani waxaan ka oran lahaa wiil kasta hooyaa dhashay aabbaa dhalay waxaan odhan lahaa wiilasha guryaha inoo jooga yacni cumri aada u yar waa in lagu barbaariyo diinta islaamka qur-aanka mabaadi'diisa akhlaaqda wanaagsan xuquuqda haweenku leeyihiin iyo siday tahay inuu u ilaaliyo yacni xuquuqda dumarku ay leeyihiin waayo maanta nin walboo gabadh dhibaato u geysanay haddii la weydiiyo maanta maad jecesha in hooyadaa la xumeeyo uma malay inuu nina odhanaya haa ma jecla in hooyadii la xumeeyo ma jecla in walaashii la xumeeyo ma jecla in xaaskiisa ma jecla in gabadh ou dhalay la xumeeyo sababta ku kalifaysa inuu gabadh islaameed ou xumeeyo ula bareero waxshinimo iyo damiir xumo iyo bini-aadan talo iyo diin la-aan un weeyaan qofka bini-aadanka ku habsad ta kale iminka ay raggu ugu dhiiranayaan inay arintan ay nagu soo noqnoqotaan waxa ay nagu badanaya waxa weeye marka kuwii horeba la arko iyagoona meela dhigin arrinkoogii kuwii horeba marka la arko iyagoona la ciqaabin kuwii hore marka la arko iyagoo yacni ama meesha intoo laga kaxeeyo meelo kale la geeyo iska dee xaragoonaya oo nin walba markuu falxun sameeyo ou qabiil noqonayo waxaan adduunka yacni de inala hadhay ee nolosheenii eberka ka dhigay ee ina baabiyey ou kaa yahay ee beritoole loo hiilinayo ee beritoole waa inankaygii laleeyahay ee beritoole lacag lagu bixinayo lagu fangar wax walba la sameynayo halkaa kaga gudbayo ou cuquubada iyo dhibtii au galay isagii oona waxba laga jirin ou halkaa marayo dabcan kuwa kalena way ku dhiiranayaan inay waxay doonaan ay sameyn karaan qofkan dumarkaa ee bini-aadankaa ee lafdhabarta weliba bulshada ah ee walaashiyo kale ah ee reer kusoo tabceen ya yacni damiirkiisu au siinaya inuu xumeeyo run ahaantii waa wax aada iyo aad yacni looga naxo loogana murugoodo waxyaaba mar walba inagu soo noqonayo runtii murugada inoo diiday waayo guri kasta gabdhaa ku nool guri kastana inama way ku noolyihin xaafad kasta iyadoo ha iska bilowdo islaan kastoo inankeegu dhibaato au geysto gabadh xumeeyana anu waxaan odhan lahaa ha lahaato qalbiga yacni dareemaya maanta gabadhaa yaree la xumeeyey familigoog waxay dareemayaan iyadu waa inay halkiisu dhigto waa inay iyadu gacmaheega ku geyso anuu raggan qabiilku madax maray run ahaantii
يعني I don't think inay wallaahi ay wax ka qaban karaan arrimaha noocaas laakiin aan waxaan leeyahay hooyoy aday dhibaato kasta ku saameynaysaa wax ka qabta runtii wax ka qabta in walbo dhibaato sameeya gacantaada weyn ku geysid oo cuqubada aad ku marisid ilaan damiirkaagu inuu nin mujrimi guriga kula noolaado inuu ku siiyo maaha runtii bari toolana inagu inagula soo noqon karaa dhibaatada aw geystay marka insha Allah aan waxaan oran lahaa aan ku soo gabagabeynaya indho dheeraada hala lahaado hablaha iyo inamada guryaha ku wada noolnaan waxaan oran lahaa waalidku inay iska daa inamada baadka loo firayo ee leeyahay gabadhay adu u shaqay walaashii yani sidii isleefko kale leeyahay ugu shaqay bari markuu reer yeeshan aw tiyo kala sugayo aw xaaskiisa ka sugayo aw gabadhiisa ka sugayo waxa weeyaan waa inuu equal oo isku mid ah ama haydaanay loola dhaqmaa oo wax loo bara sunnadii nabigeennii quraanka ilaahay soo dejiyay runtii hadii la raaco waxbay nagama xumaanayaan nabigeennii subhana alayhi salaatu wasalaam wax walba isaga gacantiisa ku qabsan jiray dharkiisu meelan jiray kabihiisu tolan jiray dharkiisu tolan jiray halku ku dhibi la xaasaskiisa iyo caruurihiisa qudwada ilaahay noo soo saaray inaan dariiqiisa raacnana weeyaan quraanka ilaahayna wax walba ilaahay way noogu faahfaahay hadii taa dadku si fiican u bartaan dad waxaan nahay muslima laakiin afka muslimka oo ku dhaqmin diintuna de macna ma sameynayso inaad afka unaad muslimka ahaato inaad maanta salaad tukato inaad soonto laakiin aan mucaamalaadkii kale eber ka tahay oo waxa doonta sameynayso dhacayso been sheegayso aad kufsanayso oo muxuu ahaa yani you name it ad ribadii qaadanaysid oo yani ad bini aadankii kadeedaysid يعني ده تاسي لما أورن كرو قف مثلا دقن كيسي ما دين تسلان كذا سيف عنو قاضنا wax badan horta waan ka badbaadina guri kasta inanka jooga aan waxaan oran lahaa xooga hala saar maaha gabadhu waxa weyn yani waarun gabadhu edeb iyo akhlaaq baa lagu korinaya gabadhu hooyadeed bay mar walba iyadu tahay laakiin wiilasha guryaha jooga iyagana fiiro gaar ah loo yeesho dhaqankooga mucaamalaadkooga diintoodii akhlaaqdooda hala dhisan anu oran lahaa nin walba waxa sameeyay gurigu ka soo baxay nimada guryaha joogina gabdhahu la canaanan mar walbo gabadhay san sama iyada halkan isdhigtay no wallahi maaha ina mar walba qofkii iyadoo dulmanaa hadana canaantii la sii saaro waa qalad iyada u tagtay iyada raac qofka bini aadanka qalad uu ka dhici kara oo de waa qalad oo gabadhu inay muxtashimad noqoto is ilaaliso nin si yar fudud ku raacda maba aha ama la kaliyoto inay diintii ku dhaqanto weeyaan laakiin marar badan waxa dhacaysa hablaha in la afduubayo oo beel loo sheegay ina yaro muudisho in laga soo tuuray muxuu ahaa imaarada laga soo tuuray inta la kufsaday de shaqan ku haynaa baa liiro waa been baa loo sheegay marka waxa weyn dhibaatooyinkaas oo miiran baa jira walaalayaal aan foojignaano hablaheena nimadeena aan u fiirsano wax badan arrinkan inagu baa ka qaban karna gurigeena aan ka bilowno waayo beritoola aday kugu soo socotaa guri kastay ka bilaami kartaa waana dhibaato aan la noolaan doono nolosheena dhan dawladana waxaan la hayay culimaduna talaabo inay ka qaadaan waa muhiim weeyaan dawladdu iyada cadaalad sameyn karta iyada dadka xeerar u sameyn karta qof kastoo dhibaatada geystay in la qisaaso weeyaan oo dil maxay hadaan yani la dilo maanta hadii mid dadka hortiisa shacabka hortiisa lagu qisaaso oo xaqiisii la mariyo ciqaabtiisii jazaa'igiisii la mariyo uma maleyn inuu qof kale ku dhiiran lahaa inuu waxaas oo kale sameyn lahaa laakiin waxa weeyaan kuwii hore ayaa la baxsaday dibtay sameeyeen nin walbana sidii oo kale ku talagalay markuu waxa sameyn wuxuu leeyahay waxba lagaama qaban karo waxa doonta sameyn kartaa waar halkeen ku noolnahay qarnigeesay baan ku noolnahay ya maanta gabadha haday cabsanayso oo ina kaliya bixi karayn miyayna dhibaato ahayn arrinkan hadii wax laga qaban waayo wallahi waxa dhulku wuxuu isku bedelayaa qaabada aan sheegay ayaa noqonayna wax weeyaan de fasaad iyo waxa lagu noolaan u dhibaato marka waxa weyn dadka culimadana waxaan jeclaan lahayn inay arrimaha ka hadlaan oo dhalinyarta seminaar u furaan oo waxa weyn wax u sheegaan oo maxay haydaanay de lagu soo daro khudbadaha mar walba iyo muxaadarooyinka laga muxaadaro dhibaatada ay leedahay aaba kastiyo hooyo kastan waxaan oran lahaa inamada guryaha inii jooga fiiro gaara u yeesha oo waxa weyn dhibaatada geysanayaan iyo ficiladii ku jiraan waxay ku jiraan from yaraanta asaas fiican ha lagu soo kariyo oo waxa weyn akhlaaq wanaagsan iyo diin ha lagu soo barbaari taa baa lagaga badbaadi karaa dhibaatooyinka jira waar ilaahay ha laga cabsado ittaqullah umada Soomaaliyeed wallahi ilaahay ha laga cabsado oo dhibaatadan jirta ee laga aamusayo ee markay dhacdo laba cisho laga hadlayo marka dambe faraha laga qaaday halka xuquuqda ay ku waayso qof dhan gabadhan oo yaani inta la xumeeyay oo la dhibaateeyay haddana la dilay ay laba cisho laga hadlayo marka dambe halkaas sheekadeedu ku baaba'aysa nin dameer dilay marka ilaahay ha laga cabsado ablaha yaryar ilaahay ha looga cabsado
xuquuqdooda ha loo hiiliyo allah ha loo hadlo hadday dowlad tahay hadday aqoon-yahan tahay hadday oday dhaqameed tahay hadday culimo tahayba ha looga hadlo oo arrinkan meelaha layska saaro bulshada soomaalida haddii kale waa arrin aan yacni waxay noqonaysaa xadka baxa ma faraka baxa ayay noqonaysaa aadna inoogu soo badanaysa marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay inta dee lunsan ilaahay inuu ilaahay soo hadeeyo ilaahayna wallaahi gabdhaha dhibaataysan ee la dhibaateeyeyna ilaahay intii dhimatay u naxariisto waalidkooga ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo inta la nool dhibaatadana waxaan ilaahay uga rajeynaya inuu u boogadhayo ayaan ilaahay uga rajeynayaa dhammaantiin aad iyo aad baan nii salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan igu dheereeyey mawaadiicdana mawaadiic kamida dib ayaan uga soo hadli doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu